Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum dhammaantiin. Waa markii ugu horeysay live. Cidna wali ma arko. Haddii aan la qabsan waayo amba haddii aad like if I act a little weird amba si kale u dhaqmo ii dulqaata insha Allah. Shalay toolaan idhi waxaan soo gelayaa live. Okay, my connection is weak. Okay, you're live. Okay. Okay. Shalay baan doonaya inaan live soo galo laakiin mobilkayga kala jabay. نصيب ضرة and ساكن سوها قاعد الحمد لله. Okay, 11 people. كوبي توقف بكوتشيرة سقال قف. Okay. waxaan doonayaa inaan jawaab ka celiyo videogi iyo barnaamijkii aan bilaabay ee ila gaadhguul. So ima maqlaysaan? Can anyone qof ma ii jawaabi karaa? Ha amba maya? Cid ma igu odhan kartaa? Okay. Okay, very good. Ilhan Gedi. Assalamu alaikum. Okay. waxaan doonaya inaan jawaab yar ka bixiyo videogii aan iska soo duubay iyo barnaamijkii aan bilaabay ee ila gaadhguul. run ahaantii fariimo aad u badan oo kalgacayl iyo maxabo u badan ba isoo gaadhay. By the way, sankafin ba iga soo baxay, please ha ku mashquulina aniga dhegeysta. run ahaantii fariimo aad u badan oo maxabiyo kalgacalba leh ayaa isoo galay. waxaan doonayaa inaan fursad qaato aan ugu mahad celiyo dhammaanba dadkii sida wanaagsan uga jawaab celiyay videogeygii iyo barnaamijkii ila gaadhguul. run ahaantii dad badan waxaa laga yaabaa inay la yaabanaayeen sheekadaydan mujtamaca dhan ee intaa lag la soo wadaagay baraha bulshada soo dhigay. waxaan doonayay inaan idhaahdo sheekadayda waxaan aaminsanahay inaan aniga keligay ugu koobnayn. dad badan baa message ii soo diray yidhi dhaawacyo qalbigayga ku yaalay baad noo dhayday wadna dhiirigelisay. And so wallahi maan moodahaynba horta videogayga iyo noloshadan ka sheekeynay saameyn intaa leeg yeelan doonto maan moodahayn. laakiin maantaan ogaaday waxaan isleeyahay maxaad xilli horeba usoo sheergaran weyday, because run ahaantii waxaan idinku yidhi caashiq waalan baa i haya oo ah inaan bila aadamka caawiyo u gargaaro quluubtooda rajo badan ku abuuro. sheekadayduna hawshaa way qabatay run ahaantii aad si qurux badan bay welibana u qabatay. waxa weeyaan ujeedadu waxa weeyaan sheeko kasta horta guud ahaan duruufaynu ka wada simannahay. qof kastoo inaga midi dib uu soo maray qaarkiin waxaa laga yaabaa inay caafimaadka dib kala soo daristay iyo duruuf, qaarkiin waxaa laga yaabaa maalka, qaarkiin waxaa laga yaabaa bulshada xidhiidhka qoyska. qof kastoo inaga mida dib wuu la soo darsay. rafaadka iyo dhibta anigu idinla sheergareeyay iyo sheekadaydan idinka idinla sheergareeyay maxay kaga duwan tahay tiina? maxay kaga duwan tahay? waa maxay sababtan anigu u doortay inaan tayda mujtamaca dhan ugu soo bandhigo? run ahaantii waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan anigu tayda keligay ma koobsanayo. waxaan aaminsanahay qof kasta oo inaga mid ahi haddii dib uu soo maray amba qalad uu sameeyey markuu uu iska kaabay uu run ahaantii ka bogsaday dhaawaca soo gaadhay oo intuu qof kale sheekadiisa la wadaago yidhaahdo you know what, aniga sidaas iyo sidaas iyo sidaas ay gu dhacday, xaaladda sidaas iyo sidaa ahayd, sidaas iyo sidaasaan kaga baxay, adiguna waad ka bixi kartaa. in bila aadamku maanta bulshadeena bartay ku sugan tahay kumay sugnaateen run ahaantii. qofka horumar gaadhay amba qofka jid saxan helay haddii uu dadka kale la wadaagayo odhanayo you know what, aniguba in badan baan dariiqaa qaldan ku sugnaa, maanta dariiqaa saxsan baan helay, laakiin adigu dariiqaa qaldan ha marin, kan saxan adigu mar, anaa kaa qaldan maraya iska ilaali adigu. wallahi maanta bartaynu ku suganay kumaynaan sugnaaneen. run ahaantii taydu waxay kaga duwan tahay sheeko kastoo kale. dhib kastoo qof kale soo maray waxay dhibteedu kaga duwan tahay. iyo sheekadan anigu la wadaagay waxa weeyaan ugumaan talagelin tayda inay aniga igu soo absanaato, ugumaan talagelin sheekadaydu inay ahaato sheeko intay igu dhacday amba qayb nolosheeda ka mida, chapter nolosheeda ka mida intaan buuggiisii laabay dabeetana barta aan kaga dhaqaaqay ugumaan talagelin. waxaan ugu talagalay qof kastoo xaaladan ku sugnaa xaalad la mida ku sugan markaan uga sheekeeyo inuu aamini karo inuu xaaladda ka baxsan yahay. sababtu waxa weeyaan markaynu dhib ku sugannahay run ahaantii waxaynu moodnaa in adduunyada inagu keliganaynu dhibtaa ku sugannahay. waxaynu moodnaa dadka kale farxadoodunbaa inoo muuqata, dadka kale qosolkoodii dhowl cadayntoodunbaa inoo muuqata. dabeetana waxaynu moodnaa inaga mooyane cid kastoo inagu hareeraysanay inay faraxsan tahay, farxad ku sugan tahay dhibtaynu marayno aawadeed.
dad haddii run ahaantii adigoo dhibi ku haysato oo qof kale dhibtad ku jirtay mid la mida uu kaaga sheekeeyo qof ka gudbay welibana uu ku yidhaahdo you know what anigu waan ku sugnaa waanan ka baxay waan ku sugnaa waanan ka baxay run ahaantii qofka waxa gelaysa aaminaad waxa gelaysa belief waxa gelaysa dhiirigelin kalsooni buu qofkaasi qaadaya so taasi run ahaantii aniga sheekadaydu kaga duwan tahay sheekadaydu waxay run ahaantii quluub badan oo dhaawac soo gaadhay bay dhayday oo dhowr kun oo qof gaadhaya dhowr iyo 30 kun dhowr iyo 20 kun dhowr iyo 40 kun oo qof gaadhaysa sheekadaydu waxay dhiirigelisay dad badan oo oo qasaarooyin badan la soo darsay ayay dhiirigelisay oo run ahaantii ay aaminsiisay inaanay keligood qasaarooyinka la kulmin sheekadaydu waxay dhiirigelisay cid kasta oo guul raadinaysay laakiin la-ayd xil dhinacay ka bilowda amba islahayd ma haysataan qof idin gacan qabta thank you Macalin Ahmed Mahmoud I really appreciate it okay run ahaantii waxaan doonaya inaan hal qodob ku darsado ila gaadh guul maxaan uga jeedaa dadka qaar su-aalay soo weydiiyeen waa maxay guushanaad gaadhay adigu macnaha ila gaadh guul haddaynu si fiican u fahamno waa ila gaadh waan gaadhayaa dariiqii baan hayaa socdaalkii baan ku jiraaye ila gaadh weeyaan maan gaadhin iga soo daba gaadh baan odhan lahaa amba iga daba kaalay guusha iga daba hel baan odhan lahaa amba kelmado kaloo la mid laakiin maan odhanin ila gaadh baan idhi ila gaadh macnaheedu waxa weeyaan dariiqii baan hayaa kalsoonida isiisay inaan idhaahdo ila gaadh guul run ahaantii ma aha mid yar waxa weeyaan kalsooni aan naftayda ku qabo kalsooni aan xirfadayda ku qabo kalsooni aan qabo inaan jidkii qasaaraha ka baxay weeyaan kalsoonida aan u bilaabay barnaamij ila gaadh guul magacaaba ku tusinaysa maxaan haddaba u doonayaa inay dadku aniga guul ila gaadhaan waa maxay sababtu aniga guushaydu waxay gashay inay dadku guulaystaan waxaan ahay tababaro nololeed ka kaaliba tababaro nololeed macalim ka soo qaad macalimku hawsha uu qabanayo si uu guul uga gaadhaa waa inay ardaydiisii guul gaadhay dadka qaar guushooda waxay ku xidhan tahay dad kale guushooda qof kale oo guul gaadhun baad adigu guul gaadhaysaa hawsha aad qabanaysid baa sidaas macalimku wuxuu guul gaadhi karaa markuu ardaygiisu guul gaadho markaasuu isagu guul gaadhi karaa anigana sidaas la mida guushayda waxay gashay inaad idinku guul gaadhaan tababaro nololeed titleka micnihiisu taasuu ka turjumaya waa maxay guushanaad gaartay adiga wax yar inooga sheekay hunna okay su-aashii baa iigu soo noqonaysa ma gaadhin guushaydu waxa weeyaan inaad idinku guul gaadhaan inaan idinka idiin iftiimiyo dariiqa saxda ee guusha laakiin waxaan helay dariiqii saxda ahaa ayaan helay guul ma gaadhin maan idhaahdeen ila gaadh guushayduna waa idinku inaad guul gaadhaan inaan idinka dariiqa idiin iftiimiyo markaasaan guulaysanaya anigu so waxaan rajaynayaa inaan tahay isla fahamnay horta sababtaasaan anigu guushaydu u leeyahay ila gaadha guul sababtaa guushaydu waxay ku xidhan tahay inaad idinku guulaysataan su-aalo badan ayaa laga weydiiyey my connectionkayga wuxuu leeyahay uu hooseeya marka haddii aad run ahaantii khalkhal soo galo amba connectionku uu daciifo iga raali noqda dad badan ayaa i weydiiyey tababaro nololeed ma ku takhasustay takhasuskiisii ma haysaa amba qualificationskiisii ma haysataa loogu talagalay run ahaantii fikirkaasi waa fikirkan doonaya inaan bulshadeena ka baabi'iyo because si aad hawl u qabatid khasab ma aha inaad jaamacad uga soo baxdid laakiin you know what caqligaygu intaa kuma koobna waxaan ogahay inaanan waxna xirfadiisa anigoon haynin qaban karahayn laakiin balda eg waxaan qoray maalin dhaweyd maqaal guushu waa natiijada ma aha dariiqada inaan tababaro nololeed noqda khasab ma aha inaan uga soo baxo jaamacad xirfad bay u baahan tahay inaad dad tababartid xirfad bay u baahan tahay dhinacyo badan taabanaysa xirfadaana ma aha meesha quraata lagu dhigaa jaamacad anigu run ahaantii ma ihi dadka taageersan sideedaba formal education waxa jira wax la yidhaahdo mentoring waxa jira wax la yidhaahdo dadka haga qof baad heli kartaa 10 talaabo wixii kaaga horeeya isagu guul ka gaadhay dabeetana dadkii dib ugu caawinaya guusha isagu gaadhay dadkii dib ugu iftiiminaya jidkii mentors ayaa la yidhaahdaa caqligaygu kuma koobno oo kaliyaata inaan dibtaan maray iyo qasaarooyinkan ka kaabtay ula baxo titleka tababaro nololeed baan ahay no caqligaygu inta kuma koobno waxaan ogahay tababar nololeed inay intaa ka ballaaran tahay hawsha qabashadeedu inay intaa ka ballaaran tahay dibtaan maray
igama dhigasad macallin nololeed qasaarooyinkan mare igama dhigasad macallin nololeed laakiin way iga kaabaysaa way ii macaanaynaysaa hawshaas because way kala duwan yihiin qof in sheeko intuu kula wadaago sheekadiisu ku taabanayso dabeetana jidka kuu iftiimin kara isku dariiqad haysaan iyo qof intuu wixii soo bartay kugu shubaya un adiga qof يعني انتو صابرتي سي informational kuugu shubay kala duwan yihiin anigu run ahaantii waxa weeyaan socdaal nolosheeda ka mid ah waxa weeyaan xaalada aan la soo darsay inaan guul raadiyo iyo inaan dariiqi guusha helo dadkana ugu tababaro waa nolosheeda qayb ka mid ah that's what makes it inspiring macallimiintu waxay u kala qaybsamaan saddex informational motivational inspirational afar and transformational macalinka informationalka ahi waxa weeyaan macalinka informationalka ahi waxa weeyaan macalinka wax cilmigiisa hawshii loo dhiibtay gudanaya un oo intuu xiisad soo hor istaago hadduu chemistrygiiyun dhigaya hadduu xisaab dhigayo xisaabtii dhigaya intiyun ku kooban run ahaantii laakiin macalinka transformationalka ahi waxa weyn macallimiinta qaar baa jirta nolosheena kusoo noqnoqda iyo xusuusteena inuu had iyo jeer soo xasuusano macallimiin baa jira raad aad u weyn nagaga tegay macallimiintaasi ma aha macallimiin informational ah waxa weeyaan macallimiin hawshii macallinnimo iyo maadaday dhigayeen aan ku koobnaanin ee in ka badan bulshadii u taray weeyaan waa macallin noloshaada saameeya waa macallin raad kugu yeeshay he's transformational so waan kari lahaa inaan jaamacad uga soo baxo life coach aniga run ahaantii sheekaydin taabata aan idin haynin haba yaraatee wax xidhiidh ah amba wax idin inspire gareeya oo idin ilhaamiyo oo idin dhiirigeliya aan idin haynin ayaan jaamacad uga soo bixi karaa life coach dabeetana waxaan idin odhan karaa waan idin coach gareynaya laakiin macaan ma yeelanayso dhab ah ma yeelanayso waxaan kusoo noqonaya ta ah xirfadda tababarnimada inaad tababar nololeed noqdo waxaan idinku yidhi qasaarooyinkan galay darteed waxay igu qaadatay xirfad kasta oo nolosheeda ka mid ah inaan raadsado xirfad kasta oo hawl kastoon qabanaya iga baahan tahay dabeetana aan la imaado waxaan xasuustaa 40 habeen maalin oo dhanna waan soo jeeday markuu waqtigii igu filnaan waayey waxaan seexanayay 2 saacadood maalintii 2 saacadood baan seexanayay subaxdii waxaan seexanayay 7 ilaa 8 inta u dhaxaysa intaan ilmahayga yar kicin maalintii oo dhan waxaan ku mashquulsanaa hawlaha adduunyo shaqadayda wax dhigistayda ilmahayga gurigayga ku mashquulsanaa laakiin maalintii markii ideeqi weyday waxaan ka faa'iideystay habeen oo dhan baan soo jeeday wax kalena kuma soo jeedin xirfad iga maqnayd uun sidan u soo kororsan lahaa baan ku soo jeeday waxaan ku soo jeeday bartaan maanta taaganahay title kan maanta qaatay and anigu sida kalsoonida la ugu dhawaaqay xirfadii iga kaabi lahayd sidan u raadsan lahaa ban 40 habeen u soo jeeday 40 habeen oo 24 saacadood 2 habeen oo 2 saacadood oo qurata aan seexanayay kalsoonida isiisay inaan 2 milyan oo qof sheekadeeda la soo wadaago aniga ku bilaabay waliba videogayga waxaan ahay tababaro nololeed meel yar kama imanin meel gaabana kama imanin waxay ka timiday 40 habeen oo la soo jeeday waxay ka timiday mentorku ka fiican yahay inaan raadsaday bay ka timiday kalsoonidaas run ahaantii ma aha wax title inta la iska soo xambaartay aan iskaga dhawaaqay ma aha dadka qaar ba su'aalo ay weydiinaya so I'm going to give you a chance aan su'aalaha kaga jawaabo qof ba igu yiri maxaad guusha u taqaantaa guusha anigu waxaan u aqaanaa inaanay hal meel nolosha ka mid ah ahayn muslim baynu nahay markaynu guusha sheegayno amba markaynu guul qeexayno run ahaantii 2 qeexitaan baan u samayn karaa sababta midna waxa weeyaan guul aakhir midna waxa weeyaan guul adduunyo dadka qaar guusha dhabta ah waxay u yaqaanaan qofka aakhir guuleystay marka labadaba waan tixgelinayaa qofka run ahaantii guuleystay waxaan anigu u aqaanaa guusha dhabta ah qofka gaaray qofka jiha kasta noloshiisa ka mid ah guul ka sameeyay caafimaadkiisii dhisay diintiisii cibaadadiisii dhisay maalkiisii dhisay naftiisii horumarinta naftiisa dhisay xiriirku qoyskiisa la leeyahay dhisay xiriirku bulshadiisa la leeyahay dhisay aqoontiisina dhisay qofkaasaa guuleystay
سؤال حالة ولا اللي ويدي ما كان جامعة هرقيسة كويا لمد كم إذا جامعة new generation مرة نشوقي أيا أهيد أرضي كم إذا أرضي ذا يويدي وحيري إن بدن وحنا أرجنا دت كرير قلبت كأهي and ملايين دولارز أم بروفيسور هذا كسا انتحار سميني suicide سمينا يا أو استيليا يقولون هانتي إنه أركن إنه يقول كجارين نلاش ومحاوجوا عن وحويا أنت بدن نلاش قريب كم إذا بين سكوتين إنه نقول كجارنا nolosha qaybo ka mid ah laakiin farxad waxa dhameystirmaysa amba ku dhawaanaysa inay dhameystiranta waxa weeyaan noloshada qayb kasta markaad ka fikirtid daalactida tirahdid wallahi guul baan ka gaadhay ood eegtid xiriirkaad qoyskaaga la lahayd adigu caruurtaadii waalidkaad ka dhalatay iyo gurigaad dhisatay xaaskaaga amba zawjkaaga xiriirkaad la lahayd oo dabeetana tirahdid waan ku guulaystay xiriirkayga guurka waan ku guulaystay xiriirkaad bulshada ka leedahay aad eegtid ood ka fikirtid oo tirahdid you know what bulshadii maanta sumcad baan ku leeyahay way jecel yihiin maanta haddaan dhinto xusuustooda waan kusoo noqnoqon lahaa oo sidaa la iguma ilaabeen raad baan kaga tegay saameyn baan kaga tegay qulubta bini'aadamka ayaan taabtay markaas xiriirkii bulshada waad ku guulaysatay maalka markaad haysatid maalku kufeeya oo baahiyadaadii laga maarmaanka ahayd kaa kafaysa dabeetana inta indhaafsiisan kuu deeqda dabeetana keedaad ka samaysan kartid dabeetana deeq joogta aad ka bixin kartid dabeetana maalgashi aad ka samaysan kartid maalka guulbaad ka gaadhay horumarinta naftaadii haddaad naftaadii horumar siisid kugu filan oo horumarkaasi yani kaliga inaanu kugu koobnaanahayna bulshadan aad dabeetana dib u horumarin kartid horumarintii naftaada guul baad ka gaadhay laakiin qayb ka mida qodobada noloshana ku saabsan ee guusha ah haddii aynu xoogga saarno amba aynu ka gaadhno guul farxadii ma dhamaystirmayso guul lama odhan karo intaad meel ka mida noloshaada guul u samaysay maalkoo quraata haddaad dhistid lama odhan karo guul baad gaadhay sababta waxaa dhici karta inaad caafimaadkii ku weydid dariiqii aad maalka ku dhisanaysay waxaa dhici karta waxaa dhici karta inaad dadkii xiriirkii bulshada weydid in jidkii aad maalka ku dhisanaysay so haddii aad guusha marka ugu horeysa fikir caafimaad qaba ka haysan weydid ood guusha moodid hal meel laba meelood nolosha ka mid ah waxaa laga yaabaa meesha aad mooday nolosha ka mid ah inaad ku guulaysanaysid intaad socdaalka ugu jirtid inaad meelo kale khasaare kala kulantid dabeetana daawac ka badan guushaad raadinaysa ay ku soo gaadho taasaa keenta dad in badan aynu arkayno inay guulaysteen dad in badan aynu arkayno inay successful yihiin inay farxad waayaan inay run ahaantii ku dambeeyaan suicide amba intixaar amba dariiqyo xunxun maraan because guushii bay qalad ka fahmeen and yes waxaan isku dayayaa in haddii wax su-aal aad haysaan aan idinka jawaabo haddii ilaahay dhahdo عندي واحد سؤال هيسا okay good مريم okay waxaan ku darayaa waxaan idinku yiri jidkii guusha ayaan helay waa maxay jidka aan helay waxa weeyaan هدف بان سمايستي أنا ولقي هدف سمايستني دابتنا هدف غير وحن ولي بسمايستي هدف مركا حالة دان كوتشري لبربر ديجو وإيكها impossible ولقينا أني قون وحقيتشنين قصارة لأن أيو هدف كاسي إيه حقيتش اسمي تاسا إيه عدينا سو proof إيجو إن أنا هلي شيتكي صحدا هيدا قوشة إن بدنا إن جمدي همي دير بينو لنا هاي مال دير بينو وحن هيك سنة إنه مال دير قادنا لكن هدف بقى إن جمقن لكن انت ناس هميجا دير له او هميجا غير العادي له هذا مركا لبربر دقا انت عن هميجا لهين وينو كوح قبض بدنا هي انت عن هميجا لهين او لحي تبنشير بان صحفيات كون نقضي معلم الا لبا تنشير ما انت لبا تنشير بان هي انت دادان ما انت تاغني wax badan ba iigu hirgalay dhaqdhaqaaq ka badan baan sameeyay inta laba tanjirada qeyrka ay sameeyeen waxa iigu wacna waxa weeyaan هدف excuse me حيقولنا وحوين همي دارات أن لها همي زائد أن لها لكن هدف من لهين so أفرسو همي بان لها هدف من لهين دبتنا وحلي مدي هدف واللي بحلي مدي هدف حالة كنت شيء مركل بربر تقول غير معقول أوكا هدف صح أهبن لي مدي وحلي مدي هدف كارسيسن إلا يحد كائنا مسكح دي بروغرامية إن المسكح ذي subconscious كا وترين جري سي يقول وهلي لهاد وترين جري سي هدف كا غير معقول كواكا أي إن وحقيقين لهاد sorry مال جري مذوبان فرديا كلن أنقبنا يا
oo ila gaar guusha la hadaf dejin aan dadka ku barayo ayaa run ahaantii aan ugu faa'iideyn doonaa qaabka aan maskaxdayda ugu tababaray laakiin maskaxdayda sidaan guusha ugu diyaariyay baan doonaya in yar inaan idinka sheekeeyo markii aan qasaarooyin badan la kulmay oo run ahaantii 10 qasaaro 3 bilood gudahood oo dayn aad u badan igeliyay maskaxdayda waxay bilowday inay aaminto inaanan guulaysan karahayn wad dareemi kartaan markaad hal qasaare la kulantid obviously baqasha ku galaysa waxaad talaabo labad haddaad qaadi lahayd waxaad saranaysaa bilaad guul dareysataa bilaad sidii oo kale ku noqotaa maskaxdaadi waxay aamintay inaad guul dareysanaysid subconscious mind kagiba programming anigu waxaan aaminay inaanan weligay hadaf xaqiijinin anigu waxaan aaminay inaanan weligay hadaf xaqiijinin sababtaan u aaminay waxay ahayd hadaf baan samaysanin weligay yaa lahay in badan waxaan akhrinayay maqaalo guusha ku saabsan in badan waxaan daawanay fiidiyoyo guusha ku saabsan markastana waxa igu soo noqnoqonaysay achievement yani inaad heer gaadhay inaad wax hirgelisay inay wax kuu xaqiijismaan laakiin anigu way igu adkaatay run ahaantii inaan isku dayo xataa inaan wax xaqiijiyo sababta xataa haddaan isku dayi lahaa baqasha ay gashay qasaarooyinkan galay aawadeed waxaan bilaabay in haddii talaabo dambe aan qaado waxaan aaminay in haddii talaabo dambe aan qaado aan guul dareysan doono ayaan aaminay waxaan aaminay inaanan weligay hadaf xaqiijin karahayn waayo hadaf baan maan lahayn markii hore waxaan aaminay inaan guusha la iigu talagelin aniga sababta qaladaad badan baan galay waxaan aaminay inaanan garanahayn dariiqi loo mareeyay marka waxay noqotay xataa haddii hadaf sax ah aan la yimiday xataa haddii hadaf weyn oo nolosheeda wax ka bedelay aan la yimiday inaan maskaxdeydii u diyaariyo sababta maskaxda subconscious-ka ay waxay aaminsan tahay ayaa afcaashaadii xukumaysa haddii aan aaminsanaa inaanan guulaysan karahayn oonan caqiidada amba beliefka maskaxdayda ka masaxeen ficiladaydu waxay ii hagi lahaayeen jidkii guuldarrada ayay dib iigu hagi lahaayeen waayo maskaxdii subconscious-ka ahayd conscious-kii bay xukumaysaa oy ka xoog roon tahay waxa igu bay abuurmi lahaa ficilo baqasho ah ayaa igu abuurmi lahaa baqashadaas waxay igu ridi lahayn dariiqooyin qaldan oo ka duwan dariiqii saxda ahaa ee guusha ay gaadhsiinayay laakiin waxaan ku tababaray nafteyda maskaxdeyda ku tababaray inaan guulaysan karo waxaan sameeyay maalin kasta hal sac baan meditation sameeya every single day 1 hour ayaan meditation sameeya habeen kasta intaanan sii seexanin baan creative visualization sameeya ta'amul baan sameeya waxaan sawirtaa natiijada ka dhalan doonta marka aan hadafkan gaadhay waxaan maalin kasta markaan soo kaco affirmations baan akhriyaa maskaxdayda ayaan la hadlaan isku day inaan ku programmiyo kelmadaha ah so run ahaantii anigu marka loo eego xaaladan ku sugnaa waxyaalahan maskaxdayda ku programmiya ayaa ah inaan maalintii ka horeysay in ka badan guulaysto waxaan akhriyaa affirmation tiraahda I succeed more and more every day run ahaantii opposite kay ahayd because success maan haynin and marka la eego affirmationkaas I didn't succeed more and more every day. I failed more and more every day. I failed more and more every day. So in order for me to achieve the goals that I wanted to achieve, in order for me to succeed the way I wanted to succeed, I had to reprogram my subconscious mind and tell my subconscious mind that I succeed more and more every day. And I was able to, find the path that leads me to the success that I was looking for because I got rid of that negative belief. I got rid of that negative belief that was holding me back from taking action, that was holding me back from setting an almost impossible goal and then preparing myself to achieve that goal. So waxa kala maskaxdayda ku programmiyo waxa kamid ah that I achieve goals all the time inaan mar kasta hadaf xaqiijiyo so xaaladan ku jiray marka loo eego been bay ahayd sababta weligay hadaf maan xaqiijinin sababtana weligay hadaf u xaqiijinina waxay ahayd weligay hadaf maba samaysaninba laakiin maskaxdaydii baan ku programmiyey on aaminsiiyey inaan mar kasta hadaf xaqiijiyo dabeetana waxaan la imiday ficilo ah inaan hadaf xaqiijiyo ficilo saxsan jidka saxsan igu ridaya waxaan aaminsiiyey naftayda that I acquire valuable skills and knowledge every day qaladaadkan la imiday waxyaalaha iigu wacnaa waxay ahaayeen waxaan qaban jiray wax kasta anigoon xirfadiisa haynin baan ku degdegi jiray laakiin
مركن حرفدي سبان لي يمدي حتى هذا حرفدي سلا يمدي أن هدف صح أهلي يمدي أن طريق صح ذا أمري ما نكون دقائق كرهن فعلكي كمان دقائق كرهن أنا جو حتى كوكل صون إن مركن صحنا هاي صوبت subconscious mind كي يجيب آمني إن واحد استقبت بلا حرفد أيو آمني so واحد نقطة مسكحة إذا إن آمن سيو that I acquire valuable skills and knowledge every day مسكحة إذا واحد كو برنامجي إن مالين كست حرفضه إيا أقون valuable أو قيمة لأن مالين كست أنو قرات صدا أن مالين كست كرر صدا تبعتنا فعل دي بقى سحمي طريقي بان مري all the time okay and believe God yes I do believe I'm a Muslim I do believe that I'm a Muslim شكير بني دينا وذاقيا and dadka qaar waxay moodayaan successka inay dhinac adduunyo aan u janjeedinayo no cilaaqadan rabbi la leeyahay way dhisan tahay anigu cilaaqadan rabbi la leeyahay alxamdulilah waxa laga yaabaa inaanan shuruudihii rabbi subxaana watacaala iyo waajibyadii uu isaaray inaanan wada gudanin oo xadkay ahaayeen aanan u wada gudanin laakiin one thing an cid kasta u sheegi karo ayaa ah cilaaqadan anigu ilaahay la leeyahay way dhisan tahay waxay dhisan tahay ilaa iyo xadka ah habeenada qaar salaatuleyl baan u kacaa anigoon haynin ilaahay waxaan weydiisto on duco u jeedin inaan ilaahay wax ka dalbado anigoo mahadnaqan ilaahay u mahadnaqay oo iga dhamaaday waxaan salaatuleyl u kacaa 3 habeenimo si aan ilaahay subxaana watacaala ula sheekaysto oo quraata waan kacaa salaatuleyl baan u kacaa and I just express my feelings to God sujuudan dhulka saara yes sujuudan dhulka saara markaasaan ilaahay subxaana watacaala la sheekaystaa aan idhaahdaa sidaasan doonayaa laakiin waxaasaan ka baqanayaa waxaasaan jeclaan lahaa inaan sameeyo laakiin waxaasaan ka baqanayaa ya Allah this is what I want to do oh Allah this is where I'm aiming to reach wallahi xiriirkan ilaahay la leeyahay wuu dhismay laakiin wuxuu dhismay jidkaan ugu jiray inaan run ahaantii that face then you completely okay xiriirkan ilaahay la lahaa wuxuu dhismay jidkii aan qasaaraha kaga soo kaabanayay buu ku dhismay waxaan xasuustaa marka niyad jabka marka maalmaha niyad jabsanaa niyad jab aad u weyn ay soo gaadhay you know I lost hope waxaan gaadhay xaalad ah inaan rajo oo dhan ka quusto inaan aaminin inaan xal kalaba jirin oo ilaahay mooyana xal kale aan waayay inaan ilaahay gacmaha hoos dhigto mooyana xal kale aan waayay inaan salaatuleyl u kaco mooyana xal kaleba ay ii muuqan weyday xal kastoo isku daya aan ka quustay you know markaan idin leeyahay dariiqii guusha ayaan helay keliyata ma aha dariiq adduunyo waa dariiq aakhiro xataa waxaan xasuustaa maalin gurigaan iska dhex fadhiyay waxay ahayd xilli aan xal kasta ka quustay oon xoog u niyad jabsanaa waxaan daawaday reminder yar amba muxaadaro yaroo 2 daqiiqo ahayd oo ka hadlaysay stress relief sidaad u heli lahayd sidaad murugada iskaga kala khafiifin lahayd dabeetana waxay ku saabsanayd salaada inuu qofku salaada ku khushuuco si uu qofku damaaniin u helo waxaan xasuustaa salaadeedu may saxsanaan jirin salaadeedu khushuuc may lahaan jirin run ahaantii because man disnayn did you party before qof bay weydiiyey did you party before yes I used to party before alhamdulillah lakin ilaahay wuu soo hadeeyay waxaan xasuustaa salaadeedu may disnaan jirin khushuuc may lahayn حتى وقتيada maan sixi jirin salaada loogu you know salaada waajibka tahay in la tukado because maan dhisnayn qof ahaan waxaan sheekada videogan idin soo share gareydin ku qof ahaan baan dhismay waxaan dhismay qof ahaan by all means bikil tafaasiil baan qof ahaan dhismay waxaan xasuustaa videoga markii aan daawaday wuxuu videogu ahaa in qofku hadduu salaada ku khushuuco uu damaaniin heli karo uu geli karo xaalad you know ilowsiinaysa dhibtu ku sugnaa oo dhan because run ahaantii khushuucda salaadu dareen waxa laga helaa aad u qurux badan baa laga helaa I'm sorry Somali buu hadalkaygu badnaanaya waxaan arkay dadka qaar yidhi English ku hadal waxaan xasuustaa salaadii koobaad baan kacay duhur bay ahayd waan soo tukaday waxaan isku khasbay inaan degdegin salaada qaabkan u tukan jiray waxay ahayd qaab aad u degdeg badan waajibkuna askaridan u tukan jiray dabeetana waan kacay waan tukaday maalintii waxaan isku dayay faatixada inaan macnaheeda dhuuxo inaan tafsiirka macnihiisa dhuuxo si aan damaaniin u helo dabeetana alxamdulilaahi rabbil caalamiin markaan idhi aayadaas waxaan isku dayay inaan maskaxdeeda soo geliyo wax kasta oon ilaahay ugu mahadnaqi karo waxaan ka fikiray guriga quruxda badan haysto waxaan ka fikiray caafimaadkan haysto dabeetana aayadii koobaad baan ku khushuucay tafsiirkii baan
دوحي أنا سكوت مسكح دي دينا نقليو آياتي لباد الرحمن الرحيم معنى هذه التفسير كذا وان قرنا يا فتح هذا تبتنا وحن سكوت دي إنا ندوحة تبتنا وان معان سذي وحن إلى بي ستريس كي يقفرنا وحن إلى بي حالة ذا هم كوتشري مرقدي يقفرنا وحياليه مسكح دي مشغولين يي أو دنبن إلى بي أفرتي لك عدد انت تكني وحن كسب حي صلاة دي والله كأنه إنا أهي الميرا ميد مي أو دبتي إيا وركي أو دني إيجا ميد مي من صلاة دي كسب حي تبتنا درين كي بنش على يستي أنا قف فرحسن بنقول كي كوسا نقضي درين كي بنش على يستي ها إن صلاة كو خشوعة تبتنا وحن سكوت دايسي أن سكو إلوسي قصارها بدن أن مري يوركي هستين الصلاة كستون تكني كو خشوعة تبعتنا الصلاة دي وحن حسوستا صلاة دي كو حكتي وحن واسكو خصبي انتي هورسي ان اولك هنا واحد سببتن سكو خصبي وحي اهيد سي ان اوهلا طمأنينتي الا اي اي طبيعات لكن ايقا نقطي وان خصبي الا اي اي طبيعات ايقا نقطي وان خصبي ما انت الصلاة كستا وحن تكذا dadka guriga iguna nool waxay raadaan ma taraawiix ba tukanaysaa salaad kasta waxaan tukadaa wallahi aniga on aayad quraata macnaheeda dhuuxin تفسير بدل ما أقاني قرآن كمان حافظين لكن وحن كوكوبنا هذا أفرت سورة أن تفسير كذا قرنا يا ين كوكوبنا هذا تبعتنا طمأنين بنكهلا أن مركان حالة اللي ذيك الشيء كوتشري قصاروين كان سكسو كابيي أن ذيك كويري واحد قاعد حل وحن كو قصبنا يعني إلهي مويننا نحل كلا برات سنين وحن كو قصبنا حالة كوتشري سيدان وقب حين ما هبين كسر صلاة الليل وكذا وحن حسستها بين ذيك وبعد وان كيعي تشري هبين كسر صلاة الليل كا أيان كيعي تشري تبعتنا أنتي هردن إلهي بنبري تشري قعمها هيكن هوستين تشري إلهي وان سيكردي وحن بلعبنا قعمها هيك كور وقاذا مركان إلهي بريو وان سيكردي وحن بلعبنا سيدا إلهي وبريو like مرسي أن حالة ku jiray uga baxo sidaasan habeenadan salaatuleelka ku tukan jiray intaan fadhiisto on gacmaha sidaa u kala bixiyo si ilaahay ducadeyda iga aqbalo dabeetana markan ducadii iga dhamaatay bil aadan baynu nahay waynu daalnaa in badan waxaan xasuustaa ducadii markay iga dhamaatay on ka quustay yani inaan ducaysto waan iska soo kici jiray haddana rajamaan waayin waan soo kici jiray habeen kasta isla waqtigii salaatuleelka dabeetana waxaan bilaabi jiray inaan ilaahay u mahadnaqo inaan ilaahay ugu mahadnaqo waxyaalahan haysto because duca way iga dhamaatay xaaladan ku sugnaa laakiin waxaan isku dayay balse aan damaaniin u helo inaan gratefulness dareemo inaan gratefulness dareemo gratitude inaan express gareeyo inaan ilaahay ugu shukri naqo waxyaalahan haysto dabeetana waxaan xasuustaa muddadan salaatuleyl waxaan usoo kici jiray keliyata si aan ilaahay ugu mahadnaqo keliyata waan soo kici jiray dabeetana waxaan xasuustaa habeenadan alxamdulillah for this ya allah waxaad ku mahad